kulanti wanaagsan halkan warqad tube waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee kaga hinakooda ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay kulamo siyaasadeed oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waan wada hadal ah oo laga dhax bilaabay dawladda federaalka iyo musharaxiinta mucaaradka ee ku shirsan Muqdisho hadaba yaa wada arrintan maxaa si ilaa hadda ka hirgalay dawladda federaalka oo wacad ku martay inaysan bedeli doonin guddiga doorashooyinka xilli muranka ugu badan uu ka taagan yahay xubno lagu sheegay ciidan iyo shaqaale dawladeed inay qayb ka yihiin culimada Soomaaliyeed oo soo farageliyay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex jirta dawladda federaalka iyo musharaxiinta xilka madaxweynaha iyagoo bayaan 6 qodob ka soo saaray muranka ka jira doorashooyinka Soomaaliya mucaaradka oo dalab ku aadan buuqa ka jira doorashooyinka dalka u diray maamulada Puntland iyo Jubbaland wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Roble oo xalay kulamo siyaasadeed kaga qayb galay magaalada Baydhabo iyo Somaliland oo xiisadda Itoobiya qoorta u galisay Masar kuna eedaysay dagaalka ka socda dalkaasi in kaalin xoogan ay ku leedahay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana isniin taariikhda ay ku beegan tahay 23 bisha 11 November sanadda 2020 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya saaxiibadaada kuna shargaranaya baraha bulshada waad ku mahadsantahay qaybta commentiga haddii aad noogu reebta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warka warqaatiyo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xaqiijiyay in uu waawaan ka dhax wado madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta mucaaradka u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in uu kulan casho sharaf ah ku casuumay musharaxiinta ka soo jeeda Galmudug isla markaasina uu wada lagu abuurayo wada hadal dhaxmara madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta si xal looga gaaro tabashooyinka ay qabaan ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo guddiga maamulaya doorashooyinka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa wada maalmahan abuuridda weji wada hadal oo dhaxmara dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta xilka madaxweynenimo si xal looga gaaro tabashooyinka musharaxiinta ee ku aadan guddiga doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor casho sharafta waxa ka qayb galaya xubnaha kala ah ra'iisul wasaare hore ee dalka Xasan Cali Khayre madaxweynaha hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Mustafa Dhuxulow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xalay ayay ahayd markii kulan muddo saacada qaatay oo xarunta madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku dhaxmaray musharaxiinta iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxaana ay ka dalbadeen inuu ka noqdo magacaabista guddiga doorashooyinka ee xubnaha ku metelaya Galmudug waxayna ku tilmaameen xubnahaas inay ka yimaadeen hay'adda nabadgudda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ku adkaysanaya xubnaha guddiga uu soo magacaabay inay qayb ka noqdaan kuwa maamulaya doorashooyinka ayaa haddana wuxuu raadinayaa wada kale oo xal loogu raadinayo khilaafka siyaasadeed ee hadda taagan iyo shakiga guddigaasi ay ka muujiyaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya dhinaca kale shirka uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo markii hore musharaxiinta kulamadooda oo kaliya ku bilowday ayaa shalay ballaartay waxaana ka qayb galay oo lagu marti qaaday bulshada rayidka iyadoona qorshuhu uu yahay in ay door ku yeeshaan warmurtiyeedka la filayo in maanta shirkaasi laga soo saaro laguna soo gabangabeeyay magaalada Muqdisho si loogu xoojiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka awoodda qodobada ka soo baxay shirkaasi ay noqdaan kuwa aan ku koobnayn kaliya musharaxiinta bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa dhowr mar oo hore waxay ka digeen wax kasta oo horseedi kara in doorashada dalka ay noqoto mid aan dhaxdhaxaad ahayn cadaaladana ka fog sidoo kale shirkan ayaa waxa ku soo biiray shalay gelinkii dambe ilaa iyo xalay xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed waxaana arintaasi ay sii kordhinaysaa culayska saaran madaxtooyada Soomaaliya si gooni ah madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo sare u qaadaysa miisaanka shirkaasi uu leeyahay ka qaybgalka odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada toddobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gaar ahaan kuwa hawiye waxa ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyagoo oo ka digay tillaabooyin ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya oo horseedi kara colaad iyo kala tag in dalkan uu ku yimaado filla Soomaaliya ayaa wajahaysa culays badan hase yeeshee sida xogta aynu ku helnay waxa ka go'an in aysan marnaba aqbalin guddiga doorashooyinka in wax ka bedel lagu sameeyo taasi oo haddii ay dhacdo ay u aragto fashil siyaasadeed iyo in ay tahay in musharaxiinta siyaasad ahaan ay kaga awood badin doonaan filla Soomaaliya sababta ugu weyn ee diidmada ayaa ah in filla Soomaaliya ay rumaysan tahay in mucaaradka markii horeba
aysan kaalin ku lahayn magacaabista guddigan oo ay ahayd arrintan mid u taalla dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ilaa iyo haddana uusan jirin dowlad goboleed si rasmi ah u diiday inkastoo Jubbaland iyo Puntland ay muujiyaan diidmo aan la shaacin iyagoo aan soo magacaabin xubnihii gudiyadaasi ku matali lahaa waxay filla Soomaaliya doonaysaa inay ku adkaysato xubnaha guddigan inay noqdaan kuwa maamulaya doorashada mucaaradkana waxay wacad ku mareen inaysan ka qayb gali doonin doorasho xubnaha guddigaasi ay maamulayaan iyagoona sheegay inay yihiin kuwa ka yimid hay'adda NISA iyo xafiisyada dowladda dhexdhexaadna u noqon karin maamulka doorashooyinka Soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay tababar uga furtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka guddiga maamulaya doorashooyinka ee khilaafka xoogan uu ka taagan yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Gulaad Qadar oo furay tababarkaasi waxa uu sheegay xubnaha guddigan aqoon buuxda inay u leeyihiin maamulka doorashada hase yeeshee tababarkan ay ku qaadan doonaan khibrad dheeri ah oo ku aadan hanaanka doorashada loo maamulayo waxa uu carabka ku adkeeyay mar kalena uu soo bandhigay sida filla Soomaaliya uga go'an tahay xubnaha guddigan inay noqdaan kuwa maamulaya doorashooyinka wax isbedel ahna aysan ku imaanin wixii ku soo kordhay arrimaha siyaasadeed ee guudna wararkeena dambe ayaan ku soo qaadi doonaa insha Allah imikana hoggaanka hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray ismaandhaafka siyaasadeed ee dalka ka jira kaasi oo salka ku haya hanaanka loo fulinayo heshiiska dhawaan laga gaaray arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021 ee ka dhacay magaalooyinka Samareeb iyo Muqdisho qoraalka culimada oo ka koobnaa 7 qodob ayaa waxaa ku saxiixan 3 sheekh oo kala ah Sheekh Bashiir Axmed Salaad Sheekh Yuusuf Cali Caynte iyo Sheekh Shariif Maxamed Cumar waxaana baaqan loo jeediyay dhinacyada isku haya arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka qoraalka culimada qodobkiisa koobaad ayaa siyaasiyiinta ugu baaqaya inay u turaan dadka dalka iyo sidoo kale diinta iyagoona dalkay dadka ay hoggaanka u yihiin looga baahan yahay in culayska siyaasadeed ay ka dulqaadaan waxaan u soo jeedinaynaa dhinacyada kala duwan in wixii khilaaf ah ay ku xalliyaan wada hadal walaalnimo iyo isku tanaasul ayaa lagu yiri ka soo baxay culimada Soomaaliyeed dhammaan hay'adaha quseeya ayay u soo jeediyeen in ay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah oo ka fog isjiid iyo ismaandhaaf siyaasadeed si loo badbaadiyo dalkan culimada ayaana arrintaasi mar kale ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada kala duwan in ay joojiyaan hadallada xanafta leh iyo wax kasta oo hurin kara xaaladda dalka abuuri karana qalalaasa siyaasadeed ayay ku yiraahdeen war murtiyeedkoodan ay soo saareen culimada Soomaaliyeed ay uga digayaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka ka jirta iyo sidoo kale cawaaqibka laga dhaxli karo shabakada wararka ee warqaadkii ay naga daawanaysaan war goordhoona soo gaaray ayaa sheegaya in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi lagu wado in maanta uu ku biiro shirka madaxda mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in madaxda shirkaasi ka qayb galaya ay casuumeen gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo loo arko mas'uul kale oo ka mid ah xubnaha sare ee dowladda ee dhexdhexaadka ka ah arrimaha doorashooyinka aan kula safnayn arrimaha doorashooyinka xilligan filla Soomaaliya haddii Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu ku shirkan ayaa loo arkaa wax weyn oo bedeli kara dareenka beesha caalamka iyo sidoo kale in badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed maadaama sumcad badan uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaaliyeed marka la eego Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhowr jeer oo hore wuxuu muujiyay qayladaan uu ka qabo sida dowladda Soomaaliya ay u soo magacowday guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi waxa uu magacaabay guddiyo ka soo horjeeda kan filla Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa habeen hore magacaabay guddi kale iyadoo hore xukuumadda ay u magacowday guddiyadaasi uu magacaabayo kuwa la mid ah oo shaqadaasi qaban lahaa shirka ayaa waxa shalay ku beeray xubnaha ka tirsan bulshada rayidka iyo odayaasha dhaqanka miisaan culus ayeen u sii yeelaysaa ku biiritaanka Cabdi Xaashi shirkan musharaxiinta uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka warqaadkii ay naga daawanaysaan qodobo kale oo xiiso arrimaha siyaasadda Soomaaliya daaran ayaa inoo soo socda balse markan musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay u direen madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in baaritaan ay sameeyeen musharaxiintu ay ku ogaadeen in xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal kuwooda ka yimid Jubbaland iyo Puntland ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ee maamulkaasi musharaxiinta ayaa ka codsaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo kan Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe in dib u eegis ay ku sameeyaan oo ay soo bedelaan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ee ku jira labadaasi guddi waxaan mar kale ku celinaynaa in magacaabitaanka guddiyada la waafajiyay heshiisyadii doorashooyinka ee horey loo gaaray dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoon yahay ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay musharaxiinta qaybihii dambe ee warkeenu isla soo gaarnay
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Baydhabo kula shiray golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo kala hadlay arrimo la xiriira wada shaqaynta dhexdooda iyo tan ka dhaxaysa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed. ra-iisul wasaare Rooble ayaa xusay ahmiyadda ay dowladda u leedahay isku xirnaanta hay'adaha iyo sidoo kale wada shaqayn ay la yeelato maamul goboleedyada dalka. waxaan idinku boorinayaa in aad wada shaqayn wanaagsan yeelataan iskana kaashataan hawlaha muhiimka u ah dadka aad matashaan iyo tan guud ee qaranka Soomaaliyeed. sidoo kale waa in la xoojiyaa wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalka. ra-iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale ku booriyay golaha wasiirada Koonfur Galbeed inay la shaqeeyaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed, odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee arrintaasi ay qusaysana ay si dhow la shaqeeyaan guddiyadaasi si loogu guuleysto qabashada doorasho hufan oo cadaalad iyo xor ku dhisan. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo kala hadlay sida ay ula shaqayn lahaayeen guddiyada doorashooyinka ee filla Soomaaliya ay soo magacowday. ugu dambeynna waxaa weli laga dareemayaa xaalado dagaal dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigreega oo si weyn ay ugu dagaalamayaan ciidamada xisbiga TPLF iyo ciidamada federaalka Itoobiya. dagaalka Tigreega iyo xukuumadda Abiy Ahmed ayaa sii xoogaystay iyadoo ay soo baxayaan in dal kale gacan uu ka geysanayo dagaalkaasi sida uu sheegay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan. gudoomiye Saleebaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay qayb ku leedahay xukuumadda Masar, taasi oo uu sheegay in ay ugu soo gambanayso Suudaan oo xad la leh Itoobiya iyo sidoo kale Tigreega oo dagaal xilligan kula jira. Saleebaan ayaa sidoo kale xusay in dagaalkaasi uu saameyn xoogan ku yeeshay gobolka loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo. guudaarintaas ayaan kusoo gabagabeynaya warkaad kala socotay warqaad tube. daawada haddaad ku cusubtahay channelkan ku soo biir subscribe dhowr kuma kadibna fura gambaleelka tan iyo kulanti daba nabad.